الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسي كوبان oo ku saabsiisan العدل مع الله سبحانه وتعالى. إلهينا abuurtay ee khaaliqa in loo cadaalad sameeyo. sharcigu wuxuu u soo degay oo gaayat الrisaala ama sababaha diinta loo soo diray waxaa ka mid ah liyaquuma الnaasu biاlqisط, dadku inay cadaalad ku qumaan. ilaahay wuxuu leeyahy laqad arsalnaa rusulana biاlbayinaat waanzalnaa macahum اlkitaaba wاlmiisaan liyaquuma الnaasu biاlqisط. kutubtaan soo dejiyey buu ilaahay leeyay, rusul baan soo diray oo rusushaa waxaan ku soo diray baa rabbi leeyay bayinaat cadcad. bayinadu waa wixii rasuulka rasuulnimadiisa caddaynaya, waa dalaa'ilu nubuwa, waa wax kastoo inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ama ambiyadii ka horraysay inuu nebi yahay caddaynaya. rusul baan soo diray baa ilaahay leeyay iyagoo wataa caddaymo ay xagga rabbi ka sitaan oo sheegaya rasuulnimadooda. kadibna ilaahay wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala waanzalnaa macahum اlkitaaba wاlmiisaana. waxaan soo raaciyo loo soo dhiibay kitaab iyo miisaan dadku xaq iyo baatilka ay ku kala gartaan oo wax kasta ay ku kala soocaan. liyaquuma الnaasu biاlqisط baa ilahay yidhi, si dadku ay cadaaladda ugu sigmaan. waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamayaa in allaha yaamuru biاlcadli wاlإxsaani waإitaaءi di اlqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun. rabbi wuxuu idin farayaa bilcadli baa ilahay leeya, cadaalad buu idin farayaa. cadaaladdu cumuuman waa alqisط waاlinsaaf, amase waa icطaaءu kula dii xaqin xaqah. qof kasta waxa uu mudan yahay ee xaquu u leeyahay in la siiyo. ilaahayna wuxuu ku tilmaamayaa diinta uu soo dejiyey dhammaanteedba. diintu ama waa khabar ama waa xukum, waa labadaa un. waa war ilaahay uu warramayo, oo ama wixii tegay laga warramayo, dunidan iyo sidii loo abuuray laga warramayo, insaanka iyo abuurkiisa laga warramayo, taariikhdii bini aadamkee hore tagtay laga warramayo, ama war ku saabsan waxa soo socda, aakhiro iyo qiyaamaha iyo jannada iyo naarta iyo siraadka iyo xawdka iyo wixii ku saabsan laga warramayo. ama ilaahay subxaana wa tacaala uu isaga keen warramayo isaga iyo sifaadkiisa. idan diinta waxna waa war, waxna waa xukum. xukumkuna waa axkaam la leeyahay sidaa ha la yeelo, saa ha la yeelo, saa ha la yeelo. rabbi qur-aanka markaa wuxuu leeyahy watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla. kelmadda rabbi, ilaahay kelmaddiisa wuxuu dhammaystiray iyadoo ah maxay? sidqan wacadla. sidqan fi اlakhbaar wacadlan fi اlaxkaam. wixii warayna waa dhabe rabbi uu ka warramay, wixii xukume uu dejiyeyna waa cadaalad. axad alculamaa ibnu taymiya baa wuxuu leeyahy xasanaadkuba meeshuu isugu yimaadaa ina jimaacu اlxasanaati اlcadl wa jimaacu sayi'aati الظulm. xasanaadka waxa kulmiyaa waa cadaalad, sayi'aadka waxa kulmiyana waa dulmi buu leeyahy. haddaba cadaaladda aan ka warramaynaa, cadaaladdu mar waa ilaahay oo xuquuqdiisa loo cadaalad sameeyo, mar waa addoommada oo loo cadaalad sameeyo. waxa darskani ku saabsan yahay markaa ama darsigani wuxuu ku saabsan yahay qaybta koowaad oo kaliya
oo kooban oo ku saabsan alcadlu maca allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay inaynu u cadaalad samayno oo ilaahay si aynu ugu cadaalad samaynayno waa xaqa ilaahay inugu leeyahy inaynu gudanno xuquuq الraxmaan cadaalad la oofiyana waxa ugu horaysa ilaahay xuquuqdiisa hadday tawxiid tahay iyo hadday cibaado tahayba waxaa rabbi xaqa u leeyahay inuu u horeeyo sidaa awgeed ayaa saxaabigii la odhan jiray ibnu cabaas radia allahu canhu can abiih wuxuu ku tilmaamaya in allaha yaamuru bilcadli markuu fasirayey alcadlu laa ilaaha ila allah buu yidhi walixsaanu adaa'u lfaraa'id cadligu buu yidhi waa laa ilaaha ila allah cadaaladda la sheegayaaba oo waa maxay waa ilaahay baa cibaadada xaq u leh inaanad cibaadadii khaaliqa siinin maxay makhluuqa kuwa la abuuray inaanad siinin insaafka dhabta ahi waa kaa rusushuna umabay imanin kow inay ilaahay xuquuqdiisa ina baraan mooyaane ilaahay xaqiisa inayna baraan dunidaynu maanta joogno waxaad in badan maqashaan xuquuq laga warramayo xuquuqda dumarka xuquuqda carruurta xuquuqda xayawaanka xuquuqda shaqaalaha xuquuqda waxa kan waxaa maqashaan xuquuq tiro badan rights tiro badan oo laga warramayo laakiin way yaryihiin inaad aragto cid ka warramaysa ilaahay rightska uu leeyahay rabbi xuquuqdiisa cid ka warramaysa waa yartay waxaa badan in laga warramayo maxay xuquuqda makhluuqaadka islaamku xaqa makhluuqa waa ogol yihi laakiin waxaa ka horeeya ilaahay xaqiisa xaqa makhluuqaadka ama bani aadam ha ahaado human rights woman rights wuxuu doonaya ha noqdo ama ha noqdo xuquuqda environmentka iyo xayawaanka iyo xoolaha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa bisad ayaa qof dumari naar ku gashay buu nebigu yidhi xaqii bisadday ku xadgudubtay deetana waa lagu cadaabay xadiiskii bukhaari waayo may intay xidhatay ayay waxna may siinin manay sii daynin buu nebigu yidhi dhulkeeda ha wax tagtee intay xidhatay gaajo ku dishay weeyaan waa xuquuqdeedii bay ku xadgudubtay diintu way ka warramaysaa xuquuqda dhirtu leedahay iyo ta xooluhu leeyiin iyo ta bani aadamku leeyahay environmentku kuu leeyahay laakiin wax oo dhan waxa ka horeeya oo u baahan inaynu ka warranno ku celcelino xaqa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala xaqa rabbi leeyahay waana waxa koowaad ay u timi waxaa jira xadiid imaamu albukhaari uu soo warinayo kitaabkiisa saxiixu lbukhaariga la ydhaha 5 meelood buu kaga soo warinaya weliba waxay dhahaan culamaaء الxadiiث min caadaة الإimaam الbukhaariyi ma aha inuu xadiidka soo celceliyo inta badan ilaa iyo latiifa fi اlisnaad aw fi اlalfaad aw inay wax jiraan mooyaane ama xadiidka kan waxay idhahdaan meeluu soo celceliyay iyadoo sanadkuna isku mid yahay matniguna isku mid yahay waxay tilmaamaysaa ahmiyadda gaarka uu siinaya imaamku markuu xadiidkan 5 meeloodoo kitaabkiisa ku qoray imaamu muslim kitaabkiisa 2 meelood buu kaga soo arooriyey a'immada kalena abu daawuud iyo tirmidi iyo a'immada kalena waa soo arooriyeen xadiidku waa xadiid macruufa xadiidka kan waxaa warinaya anas ibnu maalik baa ka warinaya mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal saxaabiga la yidhaahdo ayaa nebi maxamed soo raacay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu leeyay bayna ana radiifu الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalam laysa baynii wa baynahu ilaa aakhiraة الraxl anigoo nebi maxamed la socda buu leeyay calayhi salaatu wasalaam oo radiif u ah radiifku waa fangalka fangalka waxaa la yidhaahdaa qofka kale daabad la saaran ee xaggiisa dambe saaran faras dameer awr wuxuu doonaya ha saaraado qofka xagga dambe saaran wuxuu leeyahay anigoo nebi maxamed la socda oo xoolaha neef xoolaa la fuushan oo aanay noo dhaxaynin kooraha mooyaane wax kale aanu noo dhaxayn kooru waa bahalkan la saaro neefka marka la fuulayo waxaa mooyaane wax kale noo dhaxaynin buu leeyahy weliba riwaayaadka qaarkood wuxuu tilmaamaya wixii ay fuushanaayeen wuxuu ahaa
dameer baanu labadeeduba wada fuushanayn buu leeyahy markaasuu wuxuu sheegayaa weliba dameerka magaciisii cufayr baa la odhan jiray buu leeyahy dameer cufayr la yidhaahdo ayaanu wada saarayn nebiga calayhi salaatu wasalaam muxuu waxaan oo dhan u warinayaa wuxuu rabaa inuu inoo sheego xadiidkan sida uu u xifdiyey meeshii uu joogay iyo hay-addu lahaayo siduu ahaa inuu inoo wariyo si aynu u yaqiinsanno xadiidkan inuu si dhaba marnaba aanu hilmaamin markaa wuxuu sifeeyey siduu nebiga ula socday iyo isagiiyo nebigu waxay wada saaraayeen waxaa kaloo xadiidku tilmaamaya tawaaduca nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi isagoo rasuula ilaahay kuu dadka khalqiga ka doortaya saaxibu liwaa'i alxamd saaxibu alwasiila waalfadiila saaxib alxawd isagoo ilaahay sayidu nnaas ka dhigayba ayuu haddana wuxuu fuushanaa wuxuu ahaa dameer ummad muslimiina isagoo hogaaminayo madaxweyne u ah ayuu dameer fuulay nebigu calayhi salaatu wasalaam weliba dameerka keligii muu fuuline saxaabi kalena markaasuu la soo saaray oo laba qof bay ku wada saaraayeen dameer waxay tilmaamaysaa inaanay dunidu wax weyn agtooda ka ahayn iyo faanfaankeeda iyo waxeeda la kaxaystaa wax weyn inaanay nebiga agtiisa ka ahayn calayhi salaatu wasalaam mucaad wuxuu leeyahay anigoo sidaa nebiga ula socda ayuu ii yeedhay nebigu yaa mucaad buu yidhi qultu labayka yaa rasuula allahi wasacdayk waxaan ku yidhi buu yidhi ku ajiibay oo ku maqlay ilaahay rasuulkiisiiyo haddana buu yidhi nebigu saacad buu iska socday waxba uma sheegin intuu u yeedhay ayuu mucaadna u jawaabay haddana waxba uma sheegine wuu iska socdeen cabbaar haddana markaanu soconnay buu wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa mucaadow haddana waan u jawaabay buu yidhi labayka rasuula allahi wasacdayk haddana saacad buu iska socday mudduu sii socday mar saddexaad buu haddana i weydiiyey yaa mucaad yidhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu mucaad u yeedho ka aamuso oo haddana u yeedho ka aamuso oo haddana u yeedho ka aamuso waxay sheegaysaa in la hubiyo mucaad inuu si fiican u soo jeestay warka loo sheegaya war muhima inuu yahaye inuu dhegta aad u raariciyo ama dhammaantiiba wada dhega noqdo isagoo curiousa markaa soo interested ah aad u raadinaya inuu ogaado waxa nebigu uu ugu celcelinaya yeedhmada ayuu mucaad leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyow hee 3 jeer markuu u yeedhay kadib ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hal tadri maa xaqu llahi calaa cibaadih mucaadow ma taqaanaa xuquuqda ilaahay addoomaha ku leeyahay xaqa rabbi ma taqaanaa xaqa alla leeyahay ma taqaanaa buu yidhi mucaad wuxuu rabaa nebi maxamed inuu cilmiga ka kororhsado qultu allahu warasuuluhu aclamu saxaabadu dad xishood badan bay ahaayeen oo nebigooda karaameeyo weyneeyo jecel waxay isku dayi jireen inay isaga jawaab ka sugaan wax kasta uu sheego wuxuu ku yidhi ilaahiyo rasuul ba garan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xaqu llahi calaa cibaadih an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a ilaahay xaqa uu leeyahay ee addoomihiisa uu ku leeyahay waxa weeyaan an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a inay keligii caabudaan oo aanay cidna ku lamaanaynin keligii in la caabudo oo aan cidna lagu lamaanayn dadka mu'miniinta ah waxaa loo sheegayaa markaa ilaahay xaqiisa koowaad inuu yahay wuu ku abuuray wuu ku arsaaqay wuu ku caafimaadiyey waxbuu ku siiyey dunidu kuu oggolaado kuu sakhiray waxaan hawadan aad cabbayso iyo biyahan aad cabbayso iyo wax walbabuu kuu dhigay ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisii baad cunaysaa intaad wixiisa ka dheragto inaad haddana cid kale taankis ku tidhaahdaa waa qaldanta rabbigii wax walba ku siiyey intaad hilmaamto oo ilowdo inaad cid kale u mahadnaqdo waa masale qaldan cibaadadu waa mahadnaqaad ilaahay u mahadnaqayso isaga waxba ma tarto ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen haddaynu wada caabudno ilahay waxba uma kordhiso dhammaanteen haddaynu ka wada gaalownana waxba ma yeesho laakiin ilaahay wuxuu leeyahy xaqaan idinku leeyahy waxa weeyaan markaan idin nimceeyey inay igu tidhahdaan waad mahadsantihin ilaahay waad mahadsantaydiisu waxa weeyaan inaad keligii caabuddo
laa ilaaha ila allah inaad la timaaddo iyo wixii ay koobsatay. haddii xaqaa la dafiro caddaaladay dhimatay. dadka badh baa waxay ku leeyihiin gaal baa cadaalad badan iyo ciddan baa cadaalad badan. war ilaahay kownkaba abuuray ninka dafiray xaqiisa cadaalada kuma hadhin. cadaalad waxa ugu weyn in rabbi loo cadaalad sameeyo, xuquuqdiisa la ictiraafo. haddii taa la ictiraafi waayo maaha cadaalad. dadkan muslimiinta ee dambe mas'aladaasina waa u wada fahamsan yihiin, qaladaadna wuu ku jiraa. inaan cibaadada ilaahay mooyaane cid kale loola iman muslim diidani ma jira, waa la wada fahamsan yihin. laakiin waxaa gafku soo galay afraad alcibaada. maxaa cibaadaha maxaanse ahayn? dad baa waxyaaba cibaadaha intay sameeyaan cid kale ula kaca, laakiin magac kale u bixiyeen waxay rumayseen inaanay cibaado ahayn. isma laha qofku gaalo ama shirki sameeye. waxaanuu samaynayaa waa shay cinda allahi cibaado qoran, laakiin isagoo aanu haysan cibaado oo uu meel kala qabadsiiyey. idan waxay u baahan tahay inaynu ilaahay xaqiisa sugnaa, inaynu baranno xuquuqda uu leeyahay iyo maxaa cibaado ah iyo maxaan cibaado ahayn inaynu baranno. xaqaasi hadduu lumo waa xariiq cas. walidaalik qofka muslimkii waa inuu meel adag kaga sugay. xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana mudduu socday. kadib buu mucaad u yeedhay. yaa mucaad ibnu jabal, labayka rasuula allahi wasacdayk buu yidhi. qaala hal tadri ma xaqu اlcibaadi calى allahi ida facaluuh? hal tadri, ma garanaysaa buu yidhi addoommuhuna markaa haddaba xuquuqda ay yeelanayaan hadday sidan sameeyaan. hadduu addoonku ilaahay xaqiisii guto oo uu ka soo baxo, addoommahana iyaga xuquuqdooda ma garanaysaa buu yidhi. allah warasuuluhu aclam buu yidhi. raytiska iyo xuquuqda ay addoommuhuna leeyihiin ilaahay baa garanaya. markaasuu nebigu ku yidhi xaqu اlcibaadi calى allahi an laa yucadibahum. iyaguna waxay ilaahay ku leeyihiin xaqa ah haddii ay sidaa yeelaan inaanu cadaabin. sida awgeed ayuha alikhwa, waxaan leenahay towxiidku iyo ilaahay oo keligii la caabudaa waa cadaalad. shirkiga iyo wixii la halmaalaana waa dulmi, waa cadaalad darro. waayo ilaahay ku abuuray ee ku arsaaqay ee ku nooleeyey ee dunidan aad ku noosha ee aad ka shaqaysanaysa ee wax ku cunayso iska leh, haddaad cibaadadiisii cid kala siiso rabbaad dulmiday. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy wاlkaafiruuna hum الظaalimuun baa ilaahay yidhi. kuwa gaaleed oo keliya ayuunbaa ah buu rabbi leeyahy kuwa dulmiga sameeyey. ina الshirka ladulm cadiim. shirkigu waa gaalnimo, waa dulmi weyn baa ilaahay yidhi. dulmi waxa u weyn. innagu dulmiga waxaynu naqaanaa. haddaad aragto iminka qof kale wixiisii ka qaaday ama dilaya ama maagaya ku gardaroonaya, waxaad leedahay bal cadaalad xumada eega, bal qofkaa sida loo galay de waxa lagu samey, waad xanaaqaysaa, kululaanaysa. laakiin markaad aragto ilaahay oo la caasinayo oo laga gaaloobayo, waxaa laga yaabaa inay caadiba iskala kaatay ama aanad xoog u cadhoonin. asalkuna wuxuu ahaa ilaahay xuquuqdiisa inaynu uga ilaalin badan nahay xuquuqda bani aadamka. ilaahay wuxuu ballan qaaday haddaad halkaa ka tallowdo inaad janno urinaynin oo gelaynin, naarna inaad ku waaraysaa ilaahay ballan qaado. idan masaladani waa masalo u baahan qof kastoo mu'mini inuu ka feejignaado. feejignidu digtoonidiisa inuu qabo attention oo ku saabsiisan waxa kan. innahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wma lلظaalimiina min ansaar baa ilaahay yidhi. innahu man yushrik biاllah, ciddii ilaahay wax la wadaajisa ku lamaanaysa cid kale, faqad xarama allahu calayhi اljanna, ilaahay kaa janno waa ka xaaraam yeelay, janno urin maayo. wama'waahu jahannam,
meesha uu hoyanayaana waa jahannama wamaa lilظaalimiina min ansaar baa ilaahay yidhi cidda ظaalimiinta ahina wax hiil ah heli maayaan ظaalimku waa kee dee waa kii ilaahay xuquuqdiisa dafiray kuwa ilaahay xuquuqdiisa dafiray hiil heli maayaan baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala ilahay wuxuu leeyay walaa tadcu min duuni اllahi ma laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka ida min الظaalimiin ha baryin ama ha u caabudin ha baryin oo ha caabudin ilaahay sokadii waxaan waxna anficin waxna dhibin haddaad sidaas samayso oo baryadii aad ilaahay kayrkii la qabatid iyo cibaadadii fainaka idan min الظaalimiin baa ilahay yidhi markaa waxaad ka mid tahay kuwa dulmiga sameeyey ahlu shirkigaad ku jirtaa الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون kuwa iimaanka laga helay ee aan iimaankooda ku dheehin ama ku marin ama huwinin dulmi lam yalbisuu kelmadu libaasku meeshay ka timi kuwa aan huwin ama ku marin ama ku dheehin iimaankooda dulmi aan shaadh uga dhigin ulaa'ika lahum اlأmnu wahum muhtaduun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kuwaas waxay leeyihiin amni aakhira kuwaasaa badbaadaya waana kuwa hanuunay xaqa gartay baa ilaahay leeyihi ama haddaad dulmi iimaankaaga ku dhaahdo oo gaalnima kaa soo dhex gasho aakhiro amni iyo nabadgelyo heli maysid ayuha alaxiba waxaa habboon marka intaynan aakhiro calaacalin inaynu dunuga hubsanno waxa aynu samaynayno iyo afcaasha inaga soo fulaysa qur-aanka rabbi wuxuu inooga warramayaa dad naarta ku jira oo naarta gudaheedii ku murmaya oo wada hadlaya ilahay wuxuu leeyay waburizat iljaxiimu lilghaawiin waqiila lahum ayna maa kuntum tacbuduun min duuni illahi hal yansuruunakum aw yantasiruun fakubkibuu fiiha hum wاlghaawuun wajunuudu ibliisa ajmacuun qaluu wahum fiiha yakhtasimuun tallaahi in kunna lafii ضalaali mubiin id nusawiikum birabbi اlcaalamiin rabbi wuxuu tilmaamayaa jahannama in loo soo bandhigayo oo ay u soo muuqanayso kuwii lunsanaa oo la weydiin doono war wixii aa caabudayseen meeye ilaahay sokadii waxaa caabudi jirteen meeye wax idiin hiilinaya ma ku jiraan ama iyagu lafahooda badbaadin karaya waxaba waxa lagu guraa baa ilaahay leeyahay naartaa lagu guraa ibliis iyo intii raacdayba naar bay wada gelayaan baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala qaaluu wahum fiiha yakhtasimuun baa ilaahay yidhi waxay odhanayaan iyaga oo ku doodaya naarta gudaheedaa muran ka dhacaya waa la doodaya doodani maxay ku saabsantahy kuwii la lumiyey ee dad intay beenta u sheegeen gaalnimada ku dhacay ayaa hadlayo kuwii madaxda ahaa bay la hadlayaan waxay leeyihin tallaahi ilaahay baanu ku dhaaranee in kunnaa lafii dalaalin mubiin waxaanu ku sugnayn baadinimo cad bay leeyihin ilaahay baanu ku dhaaranee waxaanu ku sugnayn baadinimo cad goormay baadinimada cad ku sugnaayeen id nusawiikum birabbi اlcaalamiin cadaalad darradan markay samaynayeen markaanu idin dhinac dhigaynay bay leeynay idinla simaynay ilaaha caalamka abuurtay markaasaanu lunsanayn maanta dadka muslimiinta nool qaybo ka mid a towxiidkii wuu ka luma laa ilaaha ila allah may ilaabin laakiin laa ilaaha ila allah wixii soo gelaya afraad ulcibaada ah ayaa jahli badani ku dhacay dabeetana cid aan rabbi ahayn baa loola kacay maanta dadka haddaad tidhaahdo waar ilaahay kitaabkiisa qaata oo ku dhaqma may buu leeyahe aan wax kala qorqorannayo innagu aan iska heshiino wax kala samaysanno
dadku waxyaabaha qaarkood muuse haddaad tidhaahdo cid aan ilaahay ahayn ha loo tukado warbal ninkan waalan eeg baa lagu leeyahay eele ilaahay kayrkii salaad ha loo tukado sow gaalnimo maaha laakiin aayadda salaada sheegaysa iyo aayadda sheegaysa in rabbi la raaco waa isku mid labadaba waa qur-aan dadka maanta jooga haddii lagu yidhaahdo guurku uma baahna sharciga in la waafajiye labadii qof ha israacaa ha israacaan iswaafaqa ha isguursaa ha israacaan haddii la yidhaaho waxay leeyihin bal ninkan waalanee gabadhaan uu meherin raba inuu xaas ka dhigta day diintaad khilaaftay baa lagu leeyahy haddaad tidhaahdo aayadda saariqa sheegaysa in gacan la gooyo ama rajmi sheegaysa ama ka sheegaysaana waxay leeyihin maya maya iminka lama wadi karayo waa laba aayadood oo qur-aan ah maxaa midna tol inooga dhigay midna waxaynu la collowna ka dhigay laba aayadood oo ilaahay kitaabkiisa ku wada yaalla oo qur-aan soo degaya maxaa ka dhigay midina wax la aqbalo oo fudud inay noqoto mushkiladdu waxa weeyaan jahliga muslimiinta kaga dhacay afraad alcibaada kaga dhacay inay ilaahay u cadaalad sameeyaan ilaaha aayaddan ku faray baa aayaddanna ku faray laba qur-aan ma kala aha ra'yi wadaad laga warrami maayo wadaad baa sidaa yidhi iyo wadaad baan odhan in laga sheekayn maayo waa aayado qur-aano qof waliba fahmi karo nimankan aakhiro ku doodaya markaasi waxay leeyihiin ilaahay baanu ku dhaaranee baadinimaanu ku sugnayn markaanu ilaahay idinla simaynay bay leeyihin oo ilaahay xuquuqdu lahaa markaad cid kala siiso dee isna ilaah baad ka dhigto waad la sintay mushkiladda markan haysataa waxa weeyaan ay ka cabanayaan cadaalad darradii dunidaanu ku samaynay baa dhib nagu haysa bay leeyihin id nusawiikum birabbi alcaalamiin markaanu idinla simaynay rabbulcaalamiinka qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar baa ilaahay yidhi ilaahay nicmaduu idin siiyey haddaad tirisaan ma koobi kartaan haddii lagu siiyey nicmo aan la koobi karin maxay jawaabtu noqon lahayd qof bini aadame hadduu maanta nicmo ku siiyo qof bini aadamaa kuu yeedho wuxuu ku yidhi $1,000,000 kaa qaado iskuulkaasina waa bilaasha dhigo daartaana qaado wax walba uu iska kaa siiyey waxaad odhan lahayd ninka fiican wuxuu ii galay haddii lagu yidhaahdo kaa haddaba cay oo maag oo wax ka sheego la dirir waxaad odhan lahayd bini aadamnimo maaha qofkii waxan ii galay inaan ka hor imaadaa bini aadamnimo maaha waa cadaalad xumaad odhan waa abaalka dar ilaahay wuxuu ina leeyahay ilaahay nicmaduu idin siiyey haddaad tirisaan ma koobi kartaan qof aan nimco haysani ma jiro maanta ishaadan nicmaday tay haddaad eegto wax walba ku arkaysid ee wax walba ku akhrinaysid ee meel kasta ku maraysid ee haddana shaqadeediina lagaa kaafiyey maalan haddii layna odhan lahaa ka soo qaad isha ilaahay waan idin siiyey hadduu yidhaaho laakiin nadaafadeeda iyo ilaalinteeda idinkaa u xil saaran ma awoodi lahayn baanad u malaynaysa iminka waad iska socotaa dabadaad martaa boodhkaa isha kaa gala waxoo dhan baa kaa gala laba baal baa ilaahay kuu yeelaya in ka qabata uskaga haddiiba dabayl kulul wax kaaga dhacaan biyo yar baa ka soo baxa oo dabeetana indhaa markaad biriq ka siisaba engegay ka ilaalinaysaa oo ishii saafi bay ahaanaysaa sidii gaadhiga webariskan gaadhiga haddii siigadu ku dhacdo marka dambe muraayadda waxba ka arki maysid hadday saasuun ishu u qayaxnaan lahaydoo wax safeeya aanu jirin boodhku siduu ugu dhacayo maalinta dambe waxba maad aragteen waa buuxsami lahayd laakiin ilaahay wuxuu kuu sameeyey laba baal oo kolba intay biriq yidhaahdaan biyo yar ku soo dhacayaanoo nadiifinaya biyihii uskagaa haddana halkan lagaama dareerin meel yaroo daroosho halkan ishu ku leeday oo ay galaan oo sanka iyo meelahaas ay qabtaan waxba uskagiina arki maysid haddaad qaboobo joogto meesha qabow biyaha dabadda yaalloo dhammi way fadhiistaan qof isha baraf dhex fadhiistay arki maysid waayo biyaha yaree ilaahay kuu soo daayay waa biyo yaroo dhanaan milix baa ku jirta saa daraaddeed fadhiisan maayaan waxa barafka lagu dhalaaliyo ugu fiicana waa milix ishaada biyaheedu waa biyo yaroo dhanaan biyuhu kugu fadhiisan maayaan dhaxan kasta hadday dabadda ka dhacayso ee waxbaad arkaysaa maalin walba markay dabadda u baxdo saxar baa kaa gala qora kaa gala waxbaa kaa gala waad yaro marmaroojisaa waxaad tidhahdaa ishaa liqday maalin walba hadday ishu liqayso
bahalka yar xashiishka ku gurtaan qashinka maxaa la yidhaha baaldiyada yar qashinka lagu guro maalin walba haddaad ku riddo imise ku buuxsamaya dee 4-5 maalmood kaba soo qaad bahal weyn bil markaad ku gurayso wuu buuxsamaya ishu maalin walba ilaa maalintaad dhalatay hadday wuxuun liqayso xagga dambe sooma bay buuxsanteen laguma yidhaahdaan qashinku wuu ka buuxsamay maya habeenkii markaad seexato ayaa ilaahay xabajo yar keenayaa inta wixii lagu duuduubo saanay isha waxu yeelin waayo ishu way dhaqdhaqaaqaysaa saxarkii ku jiray hadday dhaqdhaqaaq ku dhaqaaqdo way ku xanuunaysaa ilaahay xabajo yar buu ku duuduubay habeenkii markaad seexataa la soo kaxaynaya haddana halkay subaxii ka soo dhacaysaa subaxii maad odhanaysaa xabajada waan fooldhaqanaya isug waxaad fooldhaqaysaa waa wixii uskagisha galay oo dhan oo ilaahay soo nadiif yacni jidhkaagoo qura haddaad eegto nicmada ku jirta waad cajabaysaa ilaahay waxaasoo nicmaa ku siiyey haddaad caasida ka war oo aad nicmadu weliba ku siiyey aad cisyaankiisa ku wado ishii noocan ahayd haddaad xaaraanun ku eegayso ka warran ilaahayna wuu kaaga shaqaynaya adna xaaraan ku wado dadku ninka bilyaneerka ee imika xanuunsadee la yidhahdo wadnaha ku xanuunaya imika laa ku xanuunaysa haddii la yidhahda dawo heli maysid ilaa iyo inaad dunida dabadeeda dhakhtar jooga u tagtid dhakhtarkaasi waa qaali $1 bilyan baa la bixinayaa hantidiisoo dhamma hadday $1 bilyan tahay wuu bixinaya wuxuu rabaa inuu caafimaado marun waayo wuxuu ogyahay nicamada ka maqanay intay laagtay kan caafimaad qabay halkan iska maray adiga haddii lagu yidhahdo maxaad haysataa calaacal baad bilaabaysaa iyo dayro waxba ma haysto maxaan haystaa faqri baana derderay waxba ma haysan waxaad nimco caafimaad haysataa kuuma muuqato ilaahay wuxuu leeyahy wain tacuduu nicmat allah ilaahay wuxuu nicmo idin siiyey haddaad tirisaan laa tuxsuuhaa baa ilahay yidhi ma tiro koobi kartaan haddana ina alinsaana la daluumun kafaar baa ilahay yidhi haddana bini aadam waa mid dulmi badan oo gaalnimo badan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala iyadoo waxaasoo nicmo aan siiyey nicmooyinkaa qadarin maayee dulmi iyo kufri buu wadaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa markaa waxaasoo nimcaa intuu ku siiyey haddaad gaalnimo ku abaadguddo gaalnimadaa marnaba inaan ilaahay dhaafin inaad iyada ka noqoto mooyaane ta kale ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa gaalnimadaas haddii malaa'igi ku dhacdo ama nebiye ku dhacaan ama cid ka hoosaysa ku dhacdo inay isku midto aan cidnaba laga aqbalayn waa wax adag inaad tidhaahdo nebi baa gaal noqonaya ma jirto laakiin innagaa laynoogu quusgooye ilaahay intuu ambiye ka warramay wuxuu leeyahy walow ashrakuu laxabita canhu maa kaanuu yacmaluun hadday shirki samayn lahaayeen baa ilaahay leeyahy waxaa buri lahaa wax kasta oo ay qabteen waa iyo kuwan ilaahay ka warramaya rabbi leeyahy hadday shirki samayn lahaayeen waa markii nebi ibraahim iyo wuxuu dhalay ee ka dembeeyey ilaahay ka soo warramay وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم intaasoo nebiya markii ilaahay soo tiriyey aan magacyadooda akhriyey iyo aabbayaashood baa ilaahay yidhi iyo durriyadoodii iyo walaalahood wixii yaro xaqa raacee ilaahay doortay intaasoo saalixiinoo nebiye rusula marka la ysku daro dalika huda allahi yahdi bihi man yashaau min cibaadih walow ashrakuu laxabita canhu maa kaanuu yacmaluun baa ilahay yidhi ilahay wuxuu leeyay nebiyadu haddii ay shirki ku dhacaan waxay samaynayeen camal oo dhammi wuu buraya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa nebi maxamed baa ilaahay wuxuu ku yidhi qul afagayra allahi ta'muruunnii acbudu ayuha aljaahiluun waxaad tidhaahdaa ma ilaahay cid aan ahayn baa ifaraysaan inaan caabudo duulkiinna wax magaratada ahi
walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin bal illaaha faacbud wakun min ashaakiriin. rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, nebi maxamedow adiga waxaan kuu waxyooday baa ilaahay yidhi, kuwii adiga kaa horreeye nebiyana aan u waxyooday haddaad shirki ku dhacdo adiga iyo iyaga iyo kayrkoodba layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin. camalkaagu waa burayaa, kuwa hoogayna waad ka mid noqonaysaa. ee bal illaaha faacbud wakun min ashaakiriin. rabbi keligii caabud oo inta u mahadnaqda, ila waynagana dhe cibaadadu waa nooc min thankis, waa noocaad ilaahay u mahadnaqayso, oo inta u mahadnaqda ka mid noqo. ilaahay isagoo malaa'igta ka warramayo wuxuu tilmaamay, waman yaqul minhum, malaa'igta kii ka mid ee yidhaahda innii ilaahun min duuni fadalika najzihi jahannam kadalika najzi الظaalimiin baa ilahay yidhi. malagii yidhaahda anigu ilaah baan ahay, ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala jahannamaan ku abaalmarinaya. sidaasun baanan u abaalmarinayaa baa ilahay leeyay ku kastoo dulmigaa ku dhaca. hadduu hayru malag yahayna oo uu dulmigaa ku dhaco saasun baan u abaalmarinaya. ayuha alikhwa, waxaynu u baahan nahay inaynu mas'aladan si wanaagsan u garanno. alxamdu lilaahi aladii khalaqa الsamaawaati wاlأrض wajacala الظulumaati wالnuur ثuma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun baa ilaah yidhi. waxaa mahad iska leh ilaaha cer iyo dhulba abuuray, iftiin iyo madowba isagu abuuray. ثuma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun, kuwii gaaloobay baa ilaahay leeyahy birabbihim ay can rabbihim yacdiluun, waa ka weecanayaan rabbigood. aw birabbihim yacdiluun, ilaahay bay wax la simayaan min alcidl oo ah almathal wاnnadiir. ilaahay bay wax la simeen. ilaahay in wax lala sima fii asmaa'ihi wa afcaalihi, in ilaahay wax lagula simo rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisu midnaba ma bannaana. waxaa markaa muhima dadku inay masaladan si wanaagsan u fahmaan, oo ah cadaaladda aynu ka warramayno inay u horayso casrigan aynu nool nahay. dhul badan waxaad ka maqli doontaa iskuul iyo jaamacad iyo wax walba laydinku dhigi doonaa iyadoo laga warramayo the rights, human right, woman right, children's right, environmental rights, xayawaanka xuquuqdiisa, waxaas baad maqli doontaa. xaqa dumarka, xaqa bini aadamka, xuquuqda bini aadamka ha la dhowro. intaasoo hay-adood baad arki doontaa oo u dhisan xuquuqda bini aadamkaanu ilaalinaa. intaasoo hay-adood baad arki doontaa u dhisan xuquuqda dumarkaanu ilaalinaa. intaasoo hay-adood baad arki doontaa u dhisan xuquuqda carruurtaanu ilaalinaa. intaasoo hay-adood baad arki doontaa ee u dhisan environmentka iyo bii'ada inaan wax laga bedelin ayaanu ilaalinaa. waxaas oo dhammi waxay u doodayaan xuquuqdii makhluuqaadka. waa yar yahay cid u doodaysa ilaahay xuquuqdiisii. cid u doodaysaa waa yarta, ama hay-ad u dhisan aladiina in makannaahum fi lardi aqaamu. ilaahay wuxuu leeyahay muslimku waa kuwa haddii aanu makansiino dhulka gacanta u gelina baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala aqaamuu الصalaaةa waaatawu الزakaata waamaruu biاlmacruufi wanahuu can اlmunkar. waa kuwa salaada ooga oo zakada bixiya oo macruufka dadka fara oo xumaha ka reeba. yani waxaani waxay u badan yihiin xuquuqda ilaahay. muslimku muslim dhaba wuxuu ku yahay acdam munkar la radiyaa waa shirki, acdam macruuf la isfaraana waa tawxiid. ummadda muslimka waxay u nooshay inay kuwan samayso. haddii dad badani xuquuqda kala ilaaliyeen, muslimkuna waa farantahy. ma lihin muslimku bini aadamka ha dulmiyo ama xayawaanka ha dulmiyo ama environmentka ha dulmiyo, ma lihin. dulmi oo dhammi waa xaaraan.
ilaahay wuxuu leeyahay naftayda dulmaan ka xaaraam yeelay idinkana waa laydinka mamnuucay baa la yidhi dulmoo dhammi waa xaaraam laakiin waxaynu leenahay one step aan korro oo aynu si fiican u ilaalinno ilaahay xuquuqdiisana inaynu ilaalinno oo ah inaynu keligii caabudno keligiina ka dambayno darsiga markaan maanta sheegayaa waa darsigaa kooban laakiin waa darsiga islaamka ugu weyne la sheego masalatu tawxiid waa waxa ugu weyne la sheego waxyaabaha dad aragto masaa'il dadku ku murmaan waa gaalnimo iyo gaalnimo maaha iskaga tag waxaa kuu roon inaad iskaga tagto haddii kale cid ahlu cilmi iyo diintiisa iyo caqiidadiisa iyo cadaaladiisaba lagu kalsoon yahay weydii amaa inaad wax iskaga dhacdhacdo tidhaahdo awowyaanu ka soo gaadhnay iyo cidda baanu ka soo gaadhnay aakhire laguma badbaado waxaa qura aad ku badbaadaysaa inaad tawxiidka cilmi u yeelato oo rabbi ku xidhantid oo ilaahay u cadaalad samaysid ciddii ilaahay si dhaba ugu cadaalad samaysa ayaa makhluuqana markaa u cadaalad samaynaysa sala allahuma calaa nabiyi muxammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين